horti haddaan ka sheekeeyo shaqada aan u qabanno bulshada waxaanu aada u fududaynaa isi socodka caasimadda gudaheeda waxaanu ka baxnaa 12 istaan oo istaan walba uu yahay 160 bas meelaha 170 bas kiisoo garo waxaanu samaynaa wareeg in caasimadda gudaheeda aanu ku wada wareegno inteeda badan mana hayno waddo wanaagsan iminka waddooyinka oo maayarka caasimaddu yar bilaabay ee iminka istaamada cusub aynu samaynay mooyaane waddooyinkii hore ee ingiriiskii ayaanu marnaa oo cidhiidhiya waxaa laba daroodle aadaan uga cabanaynaa dadku waxay nagu caayaan basku waddu dhex istaagaa wadda ma dhex istaagno waxaanu leenahay meel aanu istaagno wadda ma dhex istaagna waxaanu leenahay meel aanu istaagno waxay dadku aada uga cawdaan baskii baa socod xun ma socod xumin ee waddadaa xun qof wal oo meerad haystaaba wuxuu sameeyaa ma aamino gurigiisa gudihiisa ee wuxuu aaminaa dibadda sidii maalintii dhaweyd looga baabiinayay caasimadda gudaheeda waxaa la galaa waddada 4 mitir waddadii oo 8 mitir 4 mitir dad dhistaan cid ka baabiisana ma lihin marka wax loo sheegana waxaa lagu odhanayaa waddadii baa cidhiidhiya dadku waxay ku shubaan waddada biyaha ay iska maydhaan dabeetana way jajabtaa maanta haddii la sameeyo waddada roogga oo hudheellada laga qaban berrina way jajabayo dadka in la wacyigeliyaa loo baahan yahay way jirtaa sumcadda suuqa gudihiisa istaanaanu ka baxna aad buu yiri 2 istaanoo kaliya baan wax danguuda ku leenahay caasimadda gudaheeda suuqa Hargeysa dusha sare wax danguuda u leenahay ma jirto suuqa dhexdiisii waxaanu ka hor baxnaa waddo waxaanu ka dhex baxnaa waddadii waxaa nagu haysta kaariyoone waddadii ay dowladda hoose cashuurta ku bixinayeen ka dhex baxaynay iminka istaanka xeraawar oo kale istaanka Dabulo اللهم صل على محمد استاكر إذا عطوك كاريونا نوايستا استاك بيمسي استاك عباية يكون الشاط هذه إمك أي دولة الحتاص ولا شيء إمك واحد هذا هو بهرنا اللينك بليس كنا نصيو لينك بليس كهدينا نصيو تبصص واحد كان يحب يحلها واحد نقول له هاي يسوق ربع هاي سبستيشن بصص كنا مسكودي مادان وكان يحب حام dadka suuqa joogana waxa looga sameyn lahaa kaariyoonka loo taag leeyahay waxa looga sameyn lahaa meherada cashuur baa dawladda hoose ka soo leeyahay badan ka lunta talabaad wuxuu go'aayay iyagu ka dhawaajiyay annagu cashuurta dawladda hoose waxaan iyadoo markii hore baska laga qaadi jiray imika maamulka ururka city bas baa bixiya annaga bixina siday u dhanyihiin basaska caasimadda wixii cashuur ay dawladda hoose ku leedahay bishii hal mar baan shubnaa waxaan ugu talagalnay cashuurta duuban ee ka lumi jirtay dawladda hoose shubayno in lagu qabto wadooyinka ama wixii magaranaysa la sameeyo imika haddii sidan suuqa dhexdeeda maalmihii dhaweyd loo bilaabo oo aan laga joojin magaalada gudaheeda bilicda caasimaddu aad bay muuqanaysaa waxaana ku bogaadinayaa xogayaha fulinta ee dawladda hoose maayarka ku-xigeenka inayna ka laaban sidii ay maalinta dhaweyd u wadeen cidnaba ayna u joojinay magaaladooda qurxiyaan dadku way iska hadlaan tiifiyada way ka hadlaan way ka qayliyaan imika haddii mashruucii maalintii dhaweyd ay bilaabeen ay sidaa ugu wadaan aad iyo aad baan ugu garab taaganay annagoo ururka caasimadda Hargeysa City Bus wassalaamu calaykum gudoomiyaha inta bixin laba su'aalood baan kugu celin doonaa run ahaantii waxaa jirta in baarlamaanka ay noo dhisan baarlamaankaasi guddiyo dhinaca arrimaha bulshada ka shaqeeyo leeyahay culaysna wuxuu idiga saaran yahay dhinacii istaanada ee basasku ka baxay sidii imika ka soo dhawaajisay maxaad baarlamaanka inta ugu hor timaadaan idiga haysta dhibaatada dhinaca gaadiidka idiga haysta dhinaca istaanada aad u sheegi weydeen baarlamaanka mar warqad waanu qornay maamulkiiga iga horreeyay waanu la xidhiidhnay waanu ka daba tagnay waxaanu kala hadalnay basaskii caasimadda Hargeysa oo aad u soo tiro badanaya koow in basaska la joojiyo la cayimo si ma garanaysaa ay basas ku fil magaalada ka dhex shaqeeyaan ama gaadiidka soo tagay la cayimo kadibna adigu hawshaasi gudageli maayo caqabad ku timidba wala lagu diido oo lagu gacansayo waxaanu dalbanay dhul danguuda والدولة هو سكت البرنامج دولة اللي حاول يبارل بكرة إنها بالشدة وما ممكن نقول ري إذا إلا إما كواحد كسر ناس عدي ما جرت إما كمرك هذا يكتو
dowladda hoose dhulkan danta guud ee meesha lagu yidhahdo bus stationka ee dibadda magaalada ah waad ku arkaysaa mana hayno basku wuxuu ka soo baxaa waddana dadka wuu ku rogaa cid ay ka qarsoon tahay cidhiidhiga caasimadda baska gudaheeda ka haysata ama adeegii bulshada waxaanu nahay adeegaha bulshada cidhiidhiga naga haystaa ummadda cid ay ka qarsoontahay ma jirto wasaaradda hawlaha wasaaradda gaadiidka imika waxaanu doonaa inaanu la kulanno u tagno kala hadalno waxaana haysta sicir bar annagu waxaanu ku shaqaynaa shilinka somalilan waxaanu nahay cidda keliya ku shaqaysa qaadata waxna siisata cidda keliya ee ku dhibanna waa annaka iminka maalin dhaweytana waxaa jirtay xukuumaddan cusub inay wasiirka labada wasiir ee ka wada hadlay shitaalka iyo qolada shitaalku inay yidhaahdeen 7 kun ha la siiyo 7 kun laguma taagna annagu kuma iskuma bixinayno ururka basas ahaan iskuma bixin karayno waxaanu leenahay xukuumaddu ha ku noqoto qaybtan shidaal tayali looma yimaado meel tayala kama helno sperbar tayala ma helno arrimaha iyo qolada guddida arrimaha bulshada baarlamankeed noo sheegtana insha allah bismillaahi kariim waanu tegi doonaa maamulka iyagan cusub waanu la xidhiidhi doonaa waanu kala wada hadli doonaa inkastoo xukuumaddani tahay xukuumaddii waxqabadka haddana ilaa imika waxaanu ka fadhinani wax noo qabato annagoo ah dadka ugu danta yar leh bulshada dadkaanu qaadnaano waa danyar gudoomiye intaanad ka bixin waxaa jirtay dhibaato nagu soo noqnoqon jirto basaskii oo la gubayo arrintii dadkii gubayey ma la soo qabtay arrintaasi ma laga daba tegey dadka asadka maogtay naga gubayay qaranku leeyahay ee hantida qaranka wallaahi arrinkaasi wuxuu nagu ahaa aafo qaran ha nagu ahaadee waxay dhowr jeer 12 bas baa la gubay berigii doorashadii 12kii bas ka midana maalintii dhaweytoolo ayuu ku shubeelaystaankan gudihiisa xalka lagu gubayana waa hal istaan niyo arrinkaa iyadoo booliisku aad uga shaqeeyey oo aad looga shaqeeyey haddana ilaa imika wax raad ah uma hayno booliiskuna naguma soo warcelin meeshii arrinkaasi ku dambeeyey nimankii la sheegay inay u xidhxidhan yihiine afhayeenka ciidanka booliisku noo sheegayna nimankii adigu waa la sii daayey maxkamaddaa sii daysay waatay daawadayaalkaasi waxa weeye guddoomiyaha ururka basaska caasimadda somalilan oo markaasi xafiiska iigu warramayay guddoomiye aad baad u mahadsantahay arrimaha aad ka soo sheekaystay dhinaca adeegyada aad u qabataan arrimaha bulshada bulshadayna aad u qabataan aad baad guddoomiye u mahadsantahay